بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانت وعن داوديال ميل والبا جوجتان إيسي كستونو داونيسان كسو دوادا برامجك عيارها عالمكا qodobadaad ku maqli doontaan ayaa waxaa ka mid noqon doona Mbappe oo ku dhawaaqay go'aankiisa mustaqbalka halka uu jeedin doona ayaan idin soo gudbin doonaa. yaa dhaliyay goolkii rigoorada iyo taariikhda Premier League xilli ciyaareedkan ayaan idin soo gudbin doonaa. 20 koox ee ku dagaalami doona horyaalka Premier League xilli ciyaareedka dambe oo la xaqiijiyay ayaa daawan doontaan haddii aad leedmo. saddexda kooxood ee ka dhacday horyaalka Premier League iyo saddexda u soo dalacday ayaan idin soo gudbin doonaa haddii aad leedmo. sidoo kale waxaad ku maqli doontaan Mohamed Salah oo weerar ku qaaday qaar kamid ah ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Liverpool qaybtee ayuu weerar ku qaaday. barnaamijka ayaan idin ku soo gudbin doonaa haddii aad leedmo. barnaamijka waxaa soo saaray idin la socodsiinaya anigoo Guleed Ali Cusmaan. markaan ku soo dhawaada barnaamijka dhameystiran. xidiga kooxda kubadda cagta Liverpool Mohamed Salah ayaa weerar ku qaaday xidigaha kooxda kubadda cagta Liverpool kaasoo ku eedeeyay qaladaadyo badan ay markaa galeen xilli ciyaareedkani. xidiga Liverpool Mohamed Salah ayaa ka hadlay canaanta ee loo jeediyay difaaca kooxda ee Liverpool Arnold oo suurtagal ee ka muuji waayay hanaankiisii daafac taasoo keentay in Jordan Klopp uu bedelo qaab ciyaareedka kooxdiisa uu laacibkan geeyo ee qadka dhexe. Arnold oo 272 ciyaarood oo u saftay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa markaasi waxa uu dhaliyay 16 gool sidoo kalena waxa uu ka caawiyay 71 gool halka ay saaxiibadiisu dhaliyeen marar badan. su'aalo ayaa la iska weydiinayaa qaabka difaaca liita ee laacibkan uu soo bandhigay. Mohamed Salah oo wax laga weydiiyay 24 jirka oo lagu soo riixay qadka dhexe ayaa ka jawaabay anagu hadda ayaana xaqiiqsanay in daafaca aysan ahayn kubad kaliya waa kaftamaya waa ciyaartoy run ahaan xirfad leh. mar waliba waxa aanu u wada sameyn jirnay jimicsiga jidka iyo sidoo kale tababarka. waxaanu idhaahdaa haddii aad doonayso in aad ila hadasho kaliya ii kaalay. waan hubaa in Jordan Henderson iyo ciyaartoyda kaleba ay sidaas oo kale isku yihiin. si kastaba ha ahaatee Arnold ayaa intii uu Jordan Klopp bedelay booskiisa labadii bilood ee ugu dambeysay waxa uu caawiyay 6 gool iyo 1 gool oo uu dhaliyay 9 ciyaarood oo markaas uu ciyaaray laacibkani. waxaa hadda u muuqata in laacibkan booska loo bedelay uu dib weyn u keenay maadaama uu ahaa daafac garabka ka ciyaara waan laacib Liverpool waqti fiican ku soo qaatay inta lagu guda jiray. markaan waxaan aadi doonaa laacibka Kylian Mbappe oo go'aan rasmi ah ka gaaray mustaqbalkiisa. xidiga reer Faransa ee Mbappe ayaa shaaciyay go'aanka mustaqbalkiisa iyo kooxda oo markaas uu ciyaari doono xilli ciyaareedka dambe kadib markii 4 sano oo xiriir ah uu ku guuleystay abaalmarinta xidiga ugu fiican horyaalka wadanka Faransiiska ama Ligue 1 Faransa. Kylian Mbappe ayaa jibiyay rikoor Zlatan Ibrahimovic xidiga sanadka horyaalka Ligue 1 Faransiiska 3 sanadood oo isku xigta ayuu qaaday 2013 2014 2016 ayuu qaaday. hase yeeshee Kylian Mbappe ayaa markiisii afraad oo xiriir ah la siiyay isagoona ku soo guuleystay laga soo bilaabo sanadkii 2019 ilaa 2020 oo la kansalay xanuunkii COVID-19. wuxuu Mbappe abaalmarintan ku garaacay saxiixa kooxooda ay markaasi ay ka mid yihiin Leo Messi oo isna ku sugnaa magaalada Barcelona. 2 ciyaartoy kale
ay markaasi isla wada ahaayeen. sidoo kale Fofana iyo weliba weeryahanka lagu magacaabo David ayaa dhammaantood uu ku garaacay laacibkani 24 jirkan ayaa fagaarihii lagu guddoonsiiyay abaalmarinta. waxa uu shaaciyay in go'aankiisa mustaqbalkiisa ee toddobaadkan ugu dambeeya hadalhayn badan ka taagneed, lana sheegay inuu suurtagal tahay inuu ka tagi doono kooxda PSG. Mbebe waxa uu kaliya xaqiijiyay in xil ciyaareedka dambe uu sii joogi doono kooxda kubadda cagta ee PSG, laakiin waxa uu ka gaabsaday inuu markaasi dhaqaale la siin doono sanadkii saddexaad oo dooq ahaa heshiiska uu sanadkii hore u saxiixay PSG, kaas oo ka dhigan tahay in bishii June uu sii gaari doono go'aanka kama dambaysta uu gaari doono sanadka saddexaad iyo mar kale in uu fursad kale siin doono. waxaan ka fiirsanayaa ayuu yiri mar walba, waxa aan doonayo in aan taariikh ka sameeyo halka oo iga xasuus badan ayuu yiri, kuna joogi doono ayuu yiri Kylian Mbappe. wuxuu ku daray, waan jeclahay in aan PSG sii joogo, waxaan qayb ka ahaan doonaa mashruuca aan doonayo inaan sii wato. xaqiiqdii waxay tahay in xil ciyaareedka dambe inaan halkan ka sii ciyaari doono. laacibkan ayaa markaa ka mid ah laacibiinta lagu doonayo kooxaha adduunka oo ay ku waalanayso kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo kooxo kale oo aad markaasi u fara badan. markaan waxaan eegi doonaa qaar ka mid ah kooxaha horyaalka Premier League kuwa u soo baxay sanadkan oo si rasmi ah loo xaqiijiyay iyo kuwa ka haray. horyaalka wadanka Ingiriiska Premier League xilli ciyaareedkan 2023-2022 waxa uu ahaa mid aad u adag, waana la soo gabagabeeyay, waxaana 20 koox u tartamayay ay markaasi soo baxay 17. 3 ayaa dib loo celiyay heerka labaad, 3 ayaana soo dalacday. Manchester City horyaalka ayay ku guuleysatay, waxayna noqon doontaa kooxda xil ciyaareedka dambe ku dagaalami doonta inay difaacato tartanka markeedii afraad oo xiriir ah. laakiin kooxda Arsenal oo waqti dambe lumisay hogaanka ayaa muddo dheer haysay, ayaa iyaduna halgan cusub u gali doonta xil ciyaareedkan. naadiyada dhibaatada badan haysata kooxda Liverpool iyo Chelsea oo ka maqnaan doona tartanka Champions League xil ciyaareedka dambe ayaa la filayaa in iyaga oo wajigooda ay aad markaasi u adag tahay ayaa la filayaa, laakiin waxay ciyaari doonaan koobab kale oo maxalli ah oo markaasi koobka Europe ayay kooxahaasi ku dagaalami doonaan oo qayb ay markaasi ay ka yihiin kooxaha soo dalcay. ama waxaan eegi doonaa 20 koox horyaalka ka qayb gali doonta xil ciyaareedkan. sidoo kale Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle, Liverpool, Brighton, Aston Villa, Tottenham, Brentford, Wolves, Chelsea, Crystal Palace iyo Nottingham Forest, iyo sidoo kale Bournemouth iyo Fulham, iyo kooxda markaasi lagu magacaabo Northampton, Burnley, Sheffield United iyo Luton ayaa soo gudubtay, halka ay markaasi dhaceen kooxo kale oo muhiim u ah horyaalkaasi ay markaasi aad uga hareen, waxaana ay markaas sameyn doonaan isbedelo waaweyn sanadka xiga markaas soo socda. guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijka ciyaaraha caalamka. intaan barnaamijkan ku kulmi doono sida iyo